howlgal qorsheysan oo dhanka cirka ah ayaa goordhaweyd lagu beegsaday horjoogayaal ka tirsan kooxda al-shabaab iyo sidoo kale dagaalyahano kale. howlgalka ayaa ka dhacay deegaanka Fiidow oo hoostaga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe. wararku waxay sheegayaan in howlgalkan ay fuliyeen diyaaradahan duuliyaha lahayn ee droniska ayna iska kaashadeen ciidanka qaranka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah. si rasmi ah weli looma shaacin horjoogayaasha la beegsaday iyo waxaa ka soo gaaray howlgalkan dhanka cirka ah, inkastoo ay soo baxayaan warar sheegaya in kooxda lagu gaarsiiyey khasaare aad u xoogan. waa tallaabo kale oo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibada caalamiga ah ay qaadeen oo qayb ka ah dhabarjebinta al-shabaab ee khatarta ku ah nabadda iyo horumarka shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa gobolka intaba. dowladda federaalka ee Soomaaliya oo taageero ka helisa dadkeeda iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa horey u sheegtay inay ka go'an tahay in xididada u siibto horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka al-shabaab si loo gaaro Soomaaliya oo nabad ah oo xasiloon lagana suuliyey argagixisada.